waxaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho daawadayaal sida aad arkaysaanba ka socda dabaaldega munaasabadda lagu dabaaldegayo habeenkan weyn ee 1 Luuliya oo ah habeenkii ay xornimada qaateen gobolada Koonfureed ee dalka isla markaana sidoo kale ku suntan habeenkii ay midoobeen ama midowgii gobolada Koonfur iyo Waqooyi ee dalkeena sida aad arkaysaanba daawadayaal magaalada Muqdisho guud ahaan waxa laga dareemayaa dabaaldega habeenkan weyn ee 1 Luuliyo iyadoona ay calanka jamhuuriyadda daqiiqado ka hor oo ku aastaysan isla waqtigii magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta Fisha Koonfurna laga taagay calanka jamhuuriyadda isla markaana la dajiyay iyo gumeystaha ee halkaas muddo saarna waxa uu ahaa habeen weyn ummadda Soomaaliyeed oo ay heleen guushoodii ay muddo dheer ku saameeyeen inay markala ciidamada qaranka oo halka ku sugan ayaa ka qayb qaadanaya barnaamijyada habeenkan weyn iyagoona garaacaya ciidanka banda muusiga ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo garaacaya astaamaha kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliya sida aad arkaysaanba daawadayaal wali waxa socota dabaaldega munaasabadda habeenkan weyn ee 1 Luuliya oo ah habeenkii ay xornimada qaateen gobolada Koonfureed ee dalkeena isla markaana ku suntan midowgii gobolada Waqooyi iyo Koonfur ee dalka madaxtooyada qaranka ayaa la saaray hadda calanka jamhuuriyadda saacadu markay ku dhacday 12 saqdhexe waxaana ka qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo magaalada caasimadda ah waxa ka socda sida aad arkaysaanba dabaaldeg weyn oo lagu muujinayo qiimaha habeenkan ummadda Soomaaliyeed u leeyahay habeenka oo ah habeenkii ay xornimada qaateen gobolada Koonfureed ee dalka ciidamada kala duwan ee qaranka gaar ahaan ciidanka banda muusiga ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa garaacaya astaamaha iyo suugaanta ay caanka ku tahay Soomaaliya isla markaana tilmaan gaar ah ka bixinaya qiimaha habeenkan iyo xornimada ugu fadhiso gudaha Soomaaliya
qaateen gobolada koonfureed ee dalka ciidanka baandamuudka ee xoogga dalka Soomaaliyeed iyo cutub ka tirsan isla ciidanka xoogga dalka oo saaray calanka jamhuuriyadda ayaa weli ka qayb qaadanaya dabaaldegga maalintan ama habeenkan weyn ee kowda luuliyo iyadoona goobjoog uu ahaa munaasabadda calansaarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo. cutubyadan ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa saaray calanka jamhuuriyadda iyaga oo markaasi ku soo beegay isla waqtigii xilligan oo kale 61 sano ka hor calanka jamhuuriyadda la saaray gobolada koonfureed gaar ahaan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. waa habeen ku weyn habeenkani guud ahaan ummadda Soomaaliyeed. ciidamadu hadda waxay isku diyaarinayaan in ay la qaybsadaan muwaadiniinta Soomaaliyeed dabaaldegga iyaga oo halkan doonaya inay ku soo bandhigaan shucuurtooda iyo habeenkan weyni waxa uu uga dhigan yahay. guud ahaan magaalada Muqdisho waxaa weli ka soconaya dabaaldegga habeenka kowda luuliyo. calanka jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa halkan la taagay. habeenkani waa mid ku weyn guud ahaan ummadda Soomaaliyeed waana habeen la soo eebiyey dadaal iyo juhdi dheer oo ay galeen muwaadiniin badan oo Soomaaliyeed oo ay ku doonayeen inay heeriyada gumeysiga uga dalqaadaan ummadda Soomaaliyeed iyadoona riyadaasi oo muddo dheer soo jiitamaysay ay rumowday habeenkii kowda luuliya sanadii 1960 waa 61 sano ka hor. muwaadiniinta Soomaaliyeed ee xilliga ku noolaa gobolada koonfureed ee dalku waxa uu ahaa habeen weyn waxaana ka horreeyay habeenkii 26 Juun oo ay farxaddaasi dareemeen muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku noolaa gobolada waqooyi ee dalka. halgan dheer ayaa loo soo galay in la soo dhiciyo calanka jamhuuriyadda iyadoona sidan oo kale loo xuso sanad waliba munaasabadaha lagu dabaaldegayo habeenkan iyo maalintan qaaliga ah ee kowda luuliyo waa kuwa sii socod doona iyadoona maalinta beriya magaalada ay ka qabsoomi doonto munaasabad weyn oo lagu maamuusayo kowda luuliya oo ah habeen ama maalin ku suntan halgan dhaboobay oo ay galeen muwaadiniin badan kuwa badan ay nafta u hureen kuwa badanina ay xubnahooda qaaliga ah u waayeen halka kuwa badani silac kale u mareen iyo xabsi iyo dhibaatooyin badan loogu geystay. munaasabadaha ayaa sii socon doona haddii alla idmo iyadoona maalinta beriya ay muwaadiniinta Soomaaliyeed meelo kala duwan oo guud ahaan dhulka jamhuuriyadda ka mid ah ay ku qabanayaan dabaaldegyo waaweyn oo ugu dabaaldegayaan xornimada iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed. cutubyadan ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee saaray calanka jamhuuriyadda ayaa hadda qaadanaya waqtigooda gudaha madaxtooyada qaranka. calanka jamhuuriyadda ayaa hawada babanaya waana habeenkii uu dhashay habeenkani oo kale 61 sano ka hor. waa haween ku weyn guud ahaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan muwaadiniinta ku noolaa gobolada koonfureed ee dalka oo iyagu si gaar ah xornimadooda ugu qaatay gumeystihii Talyaaniga.